Bismillahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada asxaabi meel kastoo aad joogtaan. Layligan aynu caawa ku eegayno mareegta wuxuu ka haray cutubkan lixaad ee meesiyada xoolaha. Waa isla fasalka form 2. Waa cutub dheer oo 116 ilaa 133 buu ku egyahay. Fallaartiisa koowaad ee layligan waxay ku leedahay dhammaystir mahmaahyadan hoose. Mahmaahyo marka qayb ka maqan tahay baa waxaa la rabaa ardaygu inuu dhammaystiro. Tusaale ahaan waxaa la yidhi tan oo kale haddaan soo eegno waxaa la yidhi geel 2 jir soo wada mar. Geel 2 jir soo wada mar. Saasoo kale waxaa laga rabaa inaad mahmaahyadan oo dhan dhammaystirto. Waxaa la yidhi geel waa geel wixii dash xaglo geel wax gunti la geliyo dash geel waa geel wixii gooyaan geel 2 jir soo wada mar. Baadi lo aad darbaa dash loo jire ushiisa saciisa ushiisu saciisa dash taasoo kale akhri dhammaystir mahmaahyada. Qaybta ku xigta aan sii lugayne waxay leedahay fallaarta qaybteeda ku xigta waxay ku leedahay qaabkan oo kale. Waxaa meesha ku yaala erayo sharax baana lagaa rabaa. Erey sharax marka lagu yidhaahdo tusaale haddaynu soo qaadano erey dool oo kale baa meesha ku jira. Dool haddii lagu keeno la yidhaahdo wuxuu noqonayaa nooc socodka ka mid ah. Waa nooc socodka ka mid ah sida rag libaax wax ka maqnaan jiray geyiga oo ku soo biiray markaad aragto. Waxaa leedahay libaax ama rag ayaa waxay ku yimaadeen dool. Ardayga marka waxaa la yidhi sharax. Qaabkaas oo kale waxaa loo yidhi sharax. Sidaas la mid ah erayadan hadda meesha inoo yaala inaga waxaa layna ka rabaa inaynu sharaxno. Waa erayo dhammaantood ka soo jeeda baan u malaynayaa qaybta eray dhaqameedkeennii soo jireenka ahaa ee hore. Waa kadle, koose, taxaab, dekaan, saganti, gaasho, so, sed, soos iyo heeco. Marka sharax baa lagu yidhi erayadan meesha ku qoran. Erey walba waxaa la rabaa marka inaad sharaxaad ka bixiso. Sed oo kale haddaan ka hadalno. Sed waxaa la yidhaahdaa macnayaal badan buu leeyahay. Soorta ama sahayda la qaato waa la yidhaahdaa sahay sed. Waxaa kaloo la dhahaa calaf. Calafka ama irsaaqada risqiga rabbi kuu qoray baa la yidhaahdaa. waxaa kaloo sad loo yaqaanaa xijiga marka laga hadlayo lacagta geedka xijiga ah lagu kireeyo. Kirada geedka xijiga ah baa waxaa la yidhaahdaa sad. Sidaas oo kale waxaa lagaa rabaa kuwa kalena inaad jaalle macnaysid ayaa lagaa rabaa. Aan sii lugayne fallaartan saddexaad waxay kaloo ina leedahay iyadu sharax ka bixi baa la yidhi midabada fardaha. Farduhu waxay lahaayeen asxaabay midabo 7 ah. Sidii lo'du ay u lahayd midabada tirabeelka ah ee aadka u faraha badan laakiin 5 laga soo qaatay sida dhiin, haycad, giir, wax caynkaas ah. Marka sidan oo kale fardahana waxaa la yidhi 7 midab ayaa la isku raacsan yahay inay jiraan. 7 midab ee caanka ah ee fardaha baa halkan inoo ku qoran. Adiga marka waxaa lagaa rabaa midab walba inuu waxa uu yahay aad sheegtid sharaxaad ka bixisid. Tusaale waxaynu soo qaadanay lambar 4 bood. Bood waa faras cad laakiin cadaankiisaas waxaa taraxa boor. Waa cadaan boor taraxo marka waa bood. Adigana maxaa lagaa rabaa inaad inta kale sharaxdo. Qaabkaas oo kale lagaa rabaa. Layligan marka layligii hore uu ka haray intaas ayuu ku egyahay. Meel kastoo aad joogto channelka ku xirrow ka faa'iidayso casharadiisa asxaabtaada kalena sii gaadsii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.